halkani waa bartamaha magaalada Boorama. Magaalada Boorama waxa ay xarun u tahay gobolka Awdal oo ka tirsan Soomaaliland. waxaana magaalada Boorama lagu tilmaamaa in ay tahay magaalada dalxiiska, nabadda iyo sidoo kale ilbaxnimada iyo xadaaradda iyo waliba soo dhaweynta iyo sooriyeynta dadka Soomaaliyeed ee inta badan ay bugcad u tahay. Magaalada Boorama ay iskugu yimaadaan guud ahaanba inta ku hadasha afka Soomaaliga ee ka soo jeeda shanta Soomaaliyeed. Magaalada Boorama ayaa ah magaalo deganaansho badan ay ka helaan dadka inta badan imaada magaalada Boorama. Waxa ay hooy u tahay inta afka Soomaaliga ku hadasha. Haddaba warbixinteena daawadayaal waxaynu ku eegaynaa xilliga xagaaga loo yaqaano ayaa magaalada Boorama waxa soo buux dhaafiya dadka ka imanaya dalka Djibouti oo xiliyadan oo kale isbedel ku yimaado cimilada dalka Djibouti. magaalada Boorama ayaa sanadkani waxa ay miday xagaabaxayaashii ugu tirada badnaa abid ee ka yimaada dalka Djibouti. Cabdimaalik Maxamed Maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka ka imiday dalka Djibouti waxana uu ii sheegay in isaga iyo qoyskiisu ay halkan imaadeen. Bismillahirrahmanirrahim. magacaygu waa Cabdimaalik Maxamed Maxamuud Xoosh. waxaan ka imiday magaalada Djibouti. waxaan imaaday magaalada Boorama. magaalada Boorama wajigayga aad bay u degan tahay. wallahi runtii waan ka helay magaalada nagu nafiso magaalada aan ka helay dad badan kana Djibouti imka magaalada way ku bateen Djibouti saaka daalig imka qablihii bandana suuq wax way ka iibsadaan waan arkaa buuq weeyaan saaba leeyahay. waa tahay in adu maxaad u doorbiday inaad Boorama soo xagaabaxdid oo magaalooyinka kale u tagto? waxaa leeyahay magaaladan waa magaalahan jeclaaday aniga hubigayga ku jirta marka magaalo kale Hargeysana waan tagay mar Hargeysa laakiin way cajiibay magaalada Boorama ka nafis badan marka Hargeysa way buuq badan tahay. waa tahay adiga ma kaligaaba yimi magaalada Boorama oo u soo xagaabaxay mise adiga iyo familigiina ama qoyskiina oo dhan baa yimi? may wallahi aniga iyo shan walaalahay iyo familigayga waan imanay kolka waxaan leeyahay de walaalahay yagna dhulka way ka heleen sanad waliba noogu soo xagaabaxan. sanad kasta markaad imanaysaan guri baad sii kareysataan oo hawl bad gashaan? guri baan kareysanaa hawl baan tagnaa. waxa aan inta aan ku guday jirnay daawadayaal saameynta ay dadka soo xagaabaxa ay ku leeyihiin magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen magaalada inta ay ku sugan yihiin. waxaan wax ka weydiiyay qaar kamid ah ganacsatada suuqa waxayna ii sheegeen saameynta ay ku leeyihiin dadka ka yimaada dalka Djibouti intii ay ku sugan yihiin magaalada Boorama oo isbedel xooggan ku yimaado. wallaahi imika aad iyo aad baan u fiicanahay markaas imika reer Djibouti baa soo xagaabaxay marka reer Djibouti baa aad wax nooga iibsado oo suuqa imka iska xaami markay hadba anagu reer Djibouti waan sugnaayo cimiladan la soconaa ma garanaysa markay reer Djibouti noo yimaadaan ayaabaan anagu sugnaa waqtiyan shaqeynaa waxa weeyaan markay reer Djibouti soo xagaabaxaan iyo markay iyo labada iidood ciida arfo iyo tasoon labadaasan shaqeynaa. wallaahi aad iyo aad bay fiican yihiin reer Djibouti markay yimaadaan ay soo degayaan de alaabay u baahan yihiin dadkii oo markay de gurigii degayaan iska habeynayaan guriyo alaab ma soo qaataan markaasi alaabaha saasay nooga iibsadaan markay sii baxayaana waxay naga iibsadaan de dharka jilmada iyo waxaasay naga sii qaadaan ama waxay cusub xagan ku arkaan bay intay naga sii iibsadaan de xagga geeyaan xagga Djibouti lagu isticmaalo. aad iyo aad bay u wax iibsi badan yihiin xoogna suuqa u dhaqaaqay inta reer Djibouti uu yimid hawshoodii xoog bay socota. waa tahay waxyaabaha ugu badan ee ay nagu soo kordhiyeen ama aad dareenteen markii hore suuqu sida waxa iyo iminka sida uu yahay? waxaa jirta maagii hore sideedka markaan soo qaadno kale iminka reer Djibouti inay magaaladii Boorama dharka sideedka leeyahay ay bareen bad u malaynaysaa waayo markii hore sideedku si ayna u socon jirin bay hadda u socdaan. markaas waxaan leeyahay wax weyn bay magaalada u tareen inuu soo kordhiyeen. suuqa wala isbedel intee leeg baa ku yimid inta ay joogaan reer Djibouti maadaama aad ka mid tahay dadka suuq jooga? wala horta reer Djibouti de waa dad shacaba oo inagu soo xagaabaxa inoo yimaada marka dad markay meesha yimaadaan de qasab dad wax iibsanayay noqonayaan oo alaabtii de saan anagu u iibsanaynay hadayna naga basii dheerayn anagoona alaabo de intaan iibsanaynay ka badan maadaama ay wadankii ku cusub yihiin guriga ay degayaan marka alaabaha si fiican bay u iibsadaan suuqu aad buu u buuq badan yahay markay reer Djibouti joogaan waa dareemaysaa inay dad magaaladii ku soo kordheen oo intii hore joogtay in ka duwan ay magaaladii timiday si fiican buu suuqu u socdaa ma sha Allah. andhawahay wad maadsan tahay horta hadii la eego shucuurta dadkan ma taqaan reer Djibouti wallaahi horta waa dad aad iyo aad u xeel badan xirfad badan
suuqana waxay ku soo kordhiyeen mataqaanaa waxyaabo wallahi free activity aad iyo aad u fara badan balse waxaa jirtaa dadkaasi dadaal fiican marka ay suuqa ka baxaan maxaa nagu yimaada caajis fara badan iyo mataqaanaa suuq la-aan iyo suuqii oo yaraada balse laakiin intay joogaan waxaan dareenaa shaqo aad iyo aad u fara badan inna baan caadi ahayn 24 saac waxaa dhacday inaan taagnaano marmarka qaarkood marka waxaan leeyahay dadkaas shucuurtooda aad bay fiican tahay welcome baan leenahay waa tahay markaasi marka ay ka tagaan reer Djibouti Booramo kale ma dareentaano in ay dad ka tageen amaba sanadadii hore ay iman jireen reer Djibouti Booramo iyo sanadkan maxay isbedel ma jiraan والله isbedel weyn xoogaa jira haba yaraatee suuqa marka iyagu inay ka baxeen aad dareento caajis fara badan baa imanaya suuqu waa yaraanaya laakiin dadka kaliyaate ee suuqa sida suuqa wada xilliga kaliyan ku xisaabtan waa xilliga reer Djibouti ay yimaadaan oo kaliyaate ay ugu isticmaalka badan yihiin dadka inta badan ka soo xagaabaxa dalka Djibouti ayaa waxa kamid ah caanaha xoolaha noocyadooda kala duwan haddaba mid kamid ah dadka suuqa magaalada Boorama ku iibiya caanaha noocyadooda kala duwan sida caanaha geela caanaha looda caanaha ariga ayaa waxa aan wax ka weydiiyay socodka caanaha ama iibsiga caanaha imika iyo markii hore farqiga u dhaxeeya waxayna in sheegeen waa tahay bal waxaad iga warbixisaa inta maadaama oo ay reer Djibouti ku soo xagaabaxaan magaalada Boorama saameynta ay suuqa ku yeesheen inta ay ku sugan yihiin maasha Allah reer Djibouti inta joogaan waa la iska fiicay inkastoo reer Boorama markay joogaan caanuhu iska aad loo iibsado haddana aad iyaga nooga badan waayo dadkaas waa dadkeena nadaran karto way ka furfuran yihiin way ku wax iibsi badan yihiin isku socodka gaadiidka ee dhinaca xaafadaha magaalada Boorama iskaga kala goosha waa mid maalinle u shaqeeya mid kamid ah bajaajlayaasha magaalada Boorama ayaa waxaan wax ka weydiiyay isbedelka dhinaca rakaabka ee magaalada dhexdeeda waxana uu ii sheegay bulsho kala duwan way ku soo hiranayaan oo way imanayaan markaas bulshooyin kala duwan baa imanaysa xataa qaar ajaanib ay yimaada Soomaalida qurbo joogti baa imanaysa ilaa dalalka dariska laga imanaya oo maxaan ku raaddaa Soomaaliya ajaanib way isku wada jiraan marka walaal suuqayga aad iyo aad biska fiican yahay watay marka fiican yahay xilligii hore sidoo ahaan jiray uu ka fiican yahay sababtoo ah maxaan ku raaddaa dadka waxa ku badan dadka oo imanaya vacation-ka ama waxyaabaha kala duwan oo imanaya sida fasaxyada oo kale ama maxaan ku raaddaa dalxiis oo kale oo imanaya ayaa ku badan rakaabkiinu sidii hore waa ka fiican yahay boqolkiiba boqol ha alxamdulillah in kastu iska fiican yahay laakiin xiliyadan markii la gaaro maxaan ku raaddaa uu iska fiican yahay walaal dadka ka waran dalxiisayaasha niimaado kale ee ingeedka kale markaa ingeedka kale wallahi si aad iyo aad u soo dhaweynaa oo maxaan ku raaddaa si wacan ula dhaqana magaalada maxaan ku raaddaa waan ku soo dhaweynaa si aynan maxaan ku raaddaa wax cabashay waxyaabo aynan u tabanin oo aynan marti iskaga dhigin oo ay ku soo hiradaan oo indhaha kale ay soo jiitaan daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabayn doonaa warbixintii koobneyd aynu ku eegaynay saameynta ay dadka inta badan u soo xagaabaxa magaalada Boorama ay ku yeesheen inta lagu guda jiro xilliga xagaaga loo yaqaano taasi oo aynu ka soo sheekaynay saameynta dhinaca ganacsi dhinaca isku socodka gaadiidka iyo dhinacyada kala duwan ee dalxiiska ay ku yeesheen dadka inta badan ku sugan magaalada Boorama waa Shukriya Cabdi Cabdilaahi telefishinka madaxa bannaan ee Raya TV magaalada Boorama